kusoo dhawaada cashar cusub. Casharkeena maanta waxaynu ku qaadanaynaa quotient rule oo ka mid ah qawaaniinta derivativeska. Marka quotient rule waxaa loo isticmaalaa markaynu rabno derivative-ka marka laba function oo la isu qaybiyay. Marka halkan waxaynu haysanaa f of x oo loo qaybiyay g of x. Derivative-kiisi marka waxay noqonaysaa markaynu isticmaalayno quotient rule hooseeyaha oo la isku wargareeyay g of x square hooseeyaha oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha hooseeyaha g of x oo lagu dhiftay ddx f of x derivative-ka sareeyaha oo laga jaray sareeyaha f of x oo lagu dhiftay ddx g of x derivative-ka hooseeyaha. Marka waxay noqonaysaa hooseeyaha oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha oo laga jaray sareeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. Marka waxaa muhiim ah qaanuunkan maadaama halkan ay tahay negative inaan labatan term la isdaba marin. Yani mar walba waa inuu termkan soo hormaraa. Saa ku xasuusanaysana waxaa weeye waxay noqonaysaa halkan hooseeyaha oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha. Yani termkan waa inuu mar walba soo hormaraa. Marka waxaa aad muhiim ah inaan qaanuunka suu yahay u xafido. Okay, haddaynu isagoo prime qoranno yani haddaynu haysano f oo loo qaybiyay g oo kale haddaynu haysano aynu u baahanahay derivative-ka waxay noqonaysaa hooseeyaha oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha oo laga jaray sareeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. Yani qaanuunkeeni saanu inoo noqonaya. Okay, hooseeyaha oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha oo laga jaray sareeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. Okay, marka aynu qaadano example. Marka example-keena koowaad wuxuu noqonayaa haddaynu haysano y equals 3x yani waxaan haysanaa 3x oo laga jaray 1. Haddaynu haysano function-kan aynu u baahanahay derivative-kiisi maxay noqonaysaa qaanuunkeenu apply garaynaa. Marka y prime waxay inoo noqonaysaa halkan waxaan ku haysanaa hooseeyaha oo la isku wargareeyay. Hooseeyahan waa maxay? Waa 3x oo hal laga jaray. Waxay noqonaysaa 3x oo hal laga jaray oo la isku wargareeyay kadibna hooseeyaha 3x oo hal laga jaray oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha. Marka halkan waxaan ku haysanaa ddx sareeyahan waa maxay? Waa 3x oo laga jaray sareeyaha waa maxay? Waa 3x oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. Marka halkan waxaan haysanaa ddx derivative-ka 3x hal laga jaray. Marka 3x oo laga jaray 1. Marka derivative-keeni haddaynu sii wadano y prime waxay inoo noqonaysaa hooseeyaha oo la isku wargareeyay. Marka waa 3x minus 1 oo la isku wargareeyay. Halkan waxaan ku haysanaa iyadana waa 3x oo laga jaray 1. Marka halkan waxaan u baahanahay derivative-ka 3x. Marka derivative-ka 3x maxay noqonaysaa? Waa power rule. Powerku waa 1. Marka waxa kaliya inoo soo baxaya waa 3 maadaama derivative-ka x to power 1 ay tahay 1. Okay, oo laga jaray 3x oo lagu dhiftay derivative-ka 3x minus 1. Maxay noqonaysaa derivative-ka 3x minus 1? Yani derivative-ka 3x waa 3. Derivative-ka minus 1 waa maxay? Waa constant. Marka waxay noqonaysaa halkan minus 0. Okay, marka y prime waxay inoo noqonaysaa halkan waa 3x minus 1 oo la isku wargareeyay. Halkan waa 3x oo lagu dhiftay 3x minus 1 oo lagu dhiftay 3. Marka 3tan ayaan gudaha gelinaynaa. 3x markaynu 3 ku dhifano maxay noo soo baxaya? 9x. 3 markaynu ku dhifano minus 1 maxay noo soo baxaya? Iyadana waa minus 3. Halkan maxay haysanaa minus 3x oo lagu dhiftay 3 maxay noo soo baxaya marka? Minus 9x. Halkan waxay haysanaa minus 3x oo lagu dhiftay 0. Marka iyadana waxay noo soo baxaya 0. Marka markaynu simplify garayno saan inoo noqonaysaa. Marka y prime waxay noo sii noqonaysaa halkan waxaan arkaynaa inay tahay 9x oo laga jaray 9x. Marka 9x oo laga jaray 9x waa ever.
marka sareeyaha kaliya waxaa kaliya inoo soo haraya minus 3 hooseeyahana waa sidiisii marka waa 3x minus 1 oo la isku wargeliyey marka derivativekeeni saana inoo noqonaysaa. Okay, aynu samayno example kale marka haddaynu haysano y equals haddaynu haysano x square plus x minus 2 oo loo qaybiyey x cubed plus 6 maxay noqonaysaa? marka waxaynu niri derivative-keena qaanuunkeeni wuxuu noqonayaa hooseeyaha oo la isku wargeliyey kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha oo laga jaray sareeyaha oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. yani derivative-keena waxaa noqon niri saana inoo noqonaysaa. marka adigu intaa video qabato qaanuunka waa kan apply garay oo derivative-ka kan keen kadibna video kusoo laabo. Okay, marka derivative-keeni haddaynu sii wadano waxay inoo noqonaysaa y prime waxay inoo noqonaysaa hooseeyaha oo la isku wargeliyey marka waxaan ku haysanaa x cubed plus 6 oo la isku wargeliyey kadibna hooseeyaha x cubed plus 6 oo lagu dhiftay derivative-ka sareeyaha marka waxaan haysanaa dx sareeyahani waa maxay marka waa x square plus x minus 2 oo laga jaray halkan waa sareeya waa maxay marka isaguna waa x square oo loo geeyey x oo laga jaray 2 oo lagu dhiftay derivative-ka hooseeyaha. Okay, dx hooseeyahani waa maxay waa x cubed plus 6 okay, haddaynu sii simplify garayno y prime waxay noo noqonaysaa hooseeyaheeni oo la isku wargeliyey wuxuu ahaa 3x waxaan ka wadaa x cubed plus 6 oo la isku wargeliyey halkan waxaan ku haysanaa x cubed plus 6 halkan waa derivative-ka function-kan marka derivative function-kan maxay noqonaysaa iyaduna wada power rule xabad baynu sameynaynaa. marka tan koowaad maxay noo soo baxaysaa waxaa haysanaa x square powerku waa 2 labada waa soo dejinaynaa kadibna powerka xal baan ka jaraynaa maxay noo soo haraya power 1 x to power 1 halkana ddx of x derivative-ka x kaliya maxay noqonaysaa waa 1 plus 1 halkana waa constant marka waxay noo soo baxaya 0 marka derivative-keeni san kaliya bay noo soo baxaysaa. marka halkan maxaa ka haysanaa minus x square plus x minus 2 oo lagu dhiftay derivative-ka x cubed plus 6 iyaduna waa power rule maxay noo soo baxaya powerka soo deji x cubed maxaa noqonaysaa derivative-keeda powerka soo deji kadibna powerka halka jar marka waxaa noo soo baxaya x square halkan waa plus 6 marka derivative-ka plus 6 waa constant maxay noqonaysaa iyaduna waa eber marka derivative-keeni sana inoo soo baxaysa. Okay, marka haddaynu sii simplify garayno marka y prime waxay noo sii noqonaysaa okay labatan qoys baynu furaynaa. Okay, halka waxaa haysanaa x cubed plus 6 oo lagu dhiftay 2x plus 1 marka koowaad 2x baan gudaha gelinayaa marka 2x markaa ku dhiftay x cubed maxay soo baxaya waa 2 halkan powerku waa 1 halkan waa 3 marka labada power bay isu geenayaa waxay soo baxaya x to the power 4 halkan waxaa haystaa 2x oo lagu dhiftay 6 maxay soo baxaya marka halka 12x halkan waxaa haystaa 1 lagu dhiftay x cubed marka maxay soo baxaya plus x cubed hal lagu dhiftay 6 waa 6 halkana waa minus marka 20 3x square baan ku dhifanayaa gudaha marka 3x square marka ku dhifto x square maxay soo baxaya waa 3 power kan isu geey waa power 4. Okay, halkan maxay haysanaa 3x square oo lagu dhiftay x to power 1 marka powerka halkan waa 2 halkan waa 1 marka maxay soo baxaya plus 3x to the power 3 halkan waxaa haystaa 3x square oo lagu dhiftay minus 2 markaas maxay soo baxaysaa minus 6x square okay oo loo wada qaybiyey x cubed plus 6 all square marka y prime maxay noo noqonaysaa y prime minuska kan ayaynu gudaha gelinaynaa marka tan waa soo koobi garaynaynaa 2x4 plus
x plus x cubed plus 6 halkan waxaan haysanaa minuskana waxaan gelinaa gudaha marka minus iyo plus halkan waa plus marka waxaan soo baxay minus 3x to the power 4 halkan waa minus iyo plus marka waxaan soo baxay minus 3x cubed halkan waa minus iyo minus marka waxaan soo baxay plus 6x square oo loo wada qaybiyay x cubed plus 6 oo la wada square gareeyay marka maxaynu haysanaa waxaan isu geynaynaa baawarada isleh marka waxaan dhahaynaa y prime waxay noo noqonaysaa halkan hoosihiis ma bedelayo marka waa x cubed plus 6 oo la square gareeyay marka baawarada isleh bay isu geynaynaa halkan waxaan haysanaa 2 to the power 4 halkan waxaan haysanaa minus 3x to the power 4 okay marka waxaan haysanaa 2 laga jaray 3 waxay noo soo haray minus 1 marka waa x to the power 4 halkan waa power 3 halkan waa 1 halkan waa minus 3 marka waxay noo soo baxay minus 2x to the power 3 halkanna power 2 power 2 kalena ma jiro marka waxay noqonaysaa plus 6x square halkanna power 1 keena waa kan power 1 kalena ma jiro maxay noqonaysaa marka plus 12x halkan waxaan ku haysanaa 6 number kale lagu darana ma jiro marka waxay noqonaysaa halkan plus 6 marka final answer keeni ama derivative keeni saan inoo noqonaysaa okay aynu samayno final example ugu dambeeya aynu samayno haddaynu haysano ka soo qaad y equals cosine x oo loo qaybiyo 1 minus cosine x aynu u baahanahay derivativekiisii maxay noqonaysaa qaanuunkeenu waxay noo noqonayaa hooseeyaha oo la isku ergaray kadibna hooseeyaha oo lagu dhiftay derivativeka sarreeyaha oo laga jaray sarreeyaha oo lagu dhiftay derivativeka hooseeyaha marka qaanuunka apply garay aduu example isku day kadibna videoga ku soo laabo okay haddaynu sii wadano marka y maxay noo noqonaysaa marka y prime maxay noo noqonaysaa hooseeyaha oo la isku ergaray halka maxaa ku haysanaa 1 minus cosine x oo la isku ergaray kadibna hooseeyaha oo ah 1 minus cosine x oo lagu dhiftay derivativeka sarreeyaha marka waxaan haysanaa dx sarreeyaheenu waa cosine x oo laga jaray sarreeyaheenu waa cosine x oo lagu dhiftay derivativeka hooseeyaha marka waxaan haysanaa dx hooseeyaheenu waa maxay 1 minus cosine x marka haddaynu sii simplify garayno y prime waxay noo noqonaysaa halkan waxaan haysanaa 1 minus cosine x oo la isku ergareeyay halkan waxaan haysanaa 1 minus cosine x okay marka halkan waxaa weeye derivativeka ddx cosine of x marka derivativeka cosine of x maxay noqonaysaa waxaynu baranay in derivativeka cosine of x ay noo noqonayso minus sin x oo laga jaray cosine halkan waxaan haysanaa cosine x halkana derivativeka 1 minus cosine x maxay noqonaysaa 1 waa constant marka waa eber halkan waa minus marka derivativeka cosine x maxay noqonaysaa minus sin x marka halkan waa minus iyo minus kale bas halkan waxaan ka dhiganaa plus minus iyo minus waa plus marka waxayna soo baxayaa plus sin x marka y prime waxay noo noqonaysaa halkan waxaan ka haysanaa 1 minus cosine x oo la isku ergareeyay halkan waxaan ka haysanaa 1 minus cosine x oo lagu dhiftay minus sin x marka minus sin x ayaan gudaha gelinayaa minus sin x markaynu ku dhifano 1 maxay noo soo baxaya minus sin x marka ku dhifto cosine x maxay soo baxaya waa minus iyo minus marka waxay noqonaysaa plus cosine x sin x oo laga jaray halkan waxaan ka haysanaa cosine x oo lagu dhiftay 0 waa 0 cosine x markaan ku dhifano sin x maxay soo baxay cosine x sin x okay marka waxaan halkan ku arki karnaa in labadan term ay isku mid yihiin
halkan waxaan ku haysanaa plus cosine x sin x, halkan waa minus cosine x sin x. marka laba term maadaama isku mid yihiin marka la kala jaro waxa soo baxaya 0. marka halkan kaliya waxaa inoo kusoo haraya minus sin x. marka y prime waxay inoo noqonaysaa minus sin x oo loo qaybiyey 1 minus cosine x all square. marka derivative-keeni saan inoo noqonaysaa. alright, marka video kan intaas kusoo gabagabaynayaa. hadaa wax su'aalaha ka qabto commentiga uga tag. hadaa video ka heshana like and subscribe, asxaabtaadana la wadaag.